xildhibaanada golaha deegaanka dawladda hoose ee magaalada Buuhoodle oo muddooyinkii dambe shaqooyin xawli u soconaya oo lagu horumarinayo deegaanka gobolka Cayn ka waday magaalada Buuhoodle ayaa waxay maanta isugu yimaadeen kulan ballaaran oo ay ku soo bandhigayeen waxqabadka u qorshaysan inay qabtaan sanadda 2014 ee fooda inagu soo haysa haddii eebaha awoodda loo ogolaado sidoo kale waxay isla soo qaadeen waxqabadkii tan iyo intii la aasaasay ay qabteen waxaana ugu horreyn ka warbixiyay afhayeenka golaha deegaanka dawladda hoose ee magaalada Buuhoodle Saleebaan Dheere dhinaca kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka iyo waliba xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyadoo maalmo yar ay naga xigaan 2014 haddana waxaanu isniri waa inaad shacabka u soo daysaan warbixin hordhac haddii aanu nahay golaha deegaanka ee Buuhoodle oo muddo yar oo 4 bilood shaqeynayay waxaanu wax ka qaban doonaa bisha January ee 2001 oo aanu dhagax dhigi doonaa wadada weyn ee wadada wadnaha la yiraahdo ee dhex marta magaalada Buuhoodle laba waxa wax ka qaban doonaa oo qabiyo noo ah hawshiiso qabiyo noo tahay oo san wali noo soo afmeermin wax qabadkii airportka Buuhoodle saddex waxaanu 28 bishan December waxaanu dhagax dhigi doonaa oo aanu bilaabi doonaa suuxa sabtida aan ku beeganay soo socota jeelka weyn ee magaalada Buuhoodle loo sameeyo jeelkaas oo ay ka faa'iideysanayaan dhammaan dadka reer Khaatumo ee degan Sool Sanaag iyo Cayn jeelkaas oo lagu xidhi doono cid kasta oo dambiile ah oo dambi ka gasha dalka iyo dadkaba qodobka afraad waxaan wax ka qaban doonaa haddii Ilaahay qadaro isla January saribada Buuhoodle waxaa la aasaasay 1972 dawladda kacaanka Maxamed Siyaad Barre ayaa samaysay wali waa sidii qaybta imka dhisan waxaan ku sameeynaa rebuilding iyo dib u habeyn waxaan ku kordhin doonaa qayb yar oo anagu aanu abuuri doono haddii Ilaahay qadaro qodobka shanaad magaalada Buuhoodle iyo nawaaxigeeda dadka degan waxaanu ku wargelinaynaa in gobolka Cayn laga bilaabi doono dhul bixin lahaanshaha mulkiga dhulka iyadoo guddi la magacaabay 9 xubnood kamida oo ugu diyaar garoobo anaguna golaha deegaanka haddaanu nahay waxaanu diyaar u nahay habeen iyo maalin deegaanka horumarintiisa ayaanu diyaar u nahay dadkana aan ugu baaqaynaa inay iskaaga garab taagaan si hawlaheenaasi ay u socdaan aan hadalka ku soo gabagabeynaya anagu Khaatumo haddaanu nahay aayaha iyaga cidna kala tashan mayno cidna bartilmaameed anagu aayaha iyaga anaga ka talinayna anaga dhulka iyaga ka talinayna ummadayada iyo dadka iyagana anaga ummadayada iyo ciidayada Ilaahay xilkeeda nasaar waxaan baaq ka ugu soo dambeeyay ku gabagabeynaya shacabka reer Khaatumo ee joogan maanta waxaynu joognaa maalintii aynu ummadeenu ay ka soo baxday mugdigii siyaasadeed hal la ilaali oo hal la dhameystiro maanta iftiinka cusub ee aynu marayno haddaynu dal joogno iyo haddaynu dibad joognaba waxaan leenahay war aan garanno ummaduhu waa inaan la mid cid waliba banaankaas wax ka dhigto musharaxiinta Puntland waxaan uga digayaa aayahoodu inay khalkhalin dadka baaga mudada ee ummadooda ka irdoobay ee suuqyada garoow bila camal ka anagu dad balaaran baan meel walba qof bila camal oo cidla maray wala helay haddii aad qof bila camal oo baaga mudada oo garoow dib jir ku intaad gaar ka soo qorataan adraan dadka reer Khaatumo matala karaamadiina iyo magaciina bay buunaysaa waxaanu doonaynaa January kowdeeda golaha deegaanku wuxuu sameeyay laba kacalayn aad u hufan oo ku soo bandhigay sida afhayeenku ka hadlay oo ku soo bandhigay wax qabadkii 2014 waxaanu dhammaan si buuxda aan u istaajinay oo aan u dhaqan gelin in cashuurtu si buuxda uga wada dhaqan gasho Buuhoodle hadday tahay qaybtii guriga haddii ay tahay qaybtii suuqyada hadday tahay qaybtii gaadiidka hadday tahay qaybtii xoolaha hadday tahay maxaan ku yiraahdaa aan meel kastaba Cabdi Casiis Aadan Jaamac TV-ga caalamiga ee Somsad Buuhoodle